xukunkii lagu riday labada beelood ee walaalaha ee ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Sool ayaa qodob ka mid ah fuliyay iyadoo maanta ay labada beelood la kala wareegeen aaskii dadkii ku dhintay deegaanadii ay ku dirireen labada beelood waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka Sool Garajaamac Garas Ismaaciil oo kamid ah garaadada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ugu dambeyntii waxa aaska u kala wareejiyay labada beelood Garajaamac Garas Ismaaciil ka dhaqanay xaajadan labada beelood ee walaalaha ee Cabdi Garaad iyo Maxamed Garaad ama Bahar Samiye Qiyaad way soo ururtay judgmentkeedii shalay baad ogeydeen oo waxa weeye si wanaagsan buu u dhacay waxa hadda la gelayaa waxa weeye oo halkan maanta la isugu yimi waa duugtii oo qolada Maxamed Garaadna ay keeneen 7,000 ay keeneen qolada Cabdi Garaadna ay 13 keeneen waxaan inta ku daraya dardaar yar baan ku daraya qurba joogta waxaan leeyahay lacagtan idinka soo diray hadeer halkan taala ee $20,000 guriyihii la gubay ee arkaysaan ee 300 gaarayna waxa weeye taladiinii iyo hubkii aad soo iibiseen baa lagu gubay marka waxaan idin leenahay dib u dhiskii guriyahana waa leedika doonaya nabadgelyana waa leedika doonaya in badan bay soo noqnoqotay waxaynu ilaahay ka rajaynaynaa inana ku talagelaynaa inay tii ugu dambeysay noqoto ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inay noqoto tii inoo fusha oo wax qabadkeedu muuqdo haddii ayna ka shaqayn waraaqo la qoray iyo wax la isiri waxba tari maayaan shaqa loo baahan yahay shaqada diyaar baanu nahay hadaanu odayaasha iyo waayeelka iyo deegaankaba nahay waxaanu diyaar u nahay inaanu qaybtayada qaadano inagoo wada soconna saddexdeennii madax oo meesha wada joogay waxa dambe wax ka qabanaya waa maxay waa talo waa duco waa dardaaran waa dadka inuu u maqan yahay oo yahay qof u tirsan dadka oo la cimaamatay oo xaq lagu leeyahay xaq weyn lagu leeyahay dad baa laga dhex saaray taas fursadaas u furan waxaan leeyahay baaq ha gudbiyeen baaqaha ku kabeen kan halka ka soo baxay ee hormuudka ay u yihiin baaqan iyo heshiiskan iyo nabadgelyada halkan ka laga xidhay inoogu weynaynu ku wada shaqaynayna waxa weeye gidigeen waa adkaynta nabadgelyada waxa kale oo aan doonayna waa mag baa laydu xukumay Bahar Same iyo Qiyaad mag baa lagu xukumay annagu wasaaradda dakhliga maaha magtu shaqada yaday ka mid tahay waxaan doonaynaa labadiina guddiye halka fadhida cidda aan u xilsaaraysaan magta in la siiyo magacyada guddiyada aan magta u xilsaarteen waxaanu kala doonaynaa magta sida u qaybiseen inaanu haysano oo aanu ogaano yaa magta lagu xukumay reer walba jilib walba sifa walba tusmo walba soo noqonayna ruqaashi waxaan idinka ballan qaadanaa in cid allaaliye cid in aan idinla shaqayno waa koow waa laba cidda idinla shaqayn weydana in aanu tallaabo ka qaadno cidda idin dheganuglaan weyda cidda magta idinla ururin weyda cidda ila maxaan ku raadaan waan garanaynaa 42 magta bixin maysaan labada qabiile ballaadhan baa magta laga doonaya marka waxa ku jira bakhaylkii kii aan magta bixinaynin kii la xajacala xunaha intaa waanu idinla qabanayna askar baanu idin siinayna xeryaha geelaanu idinla gelayna waanu idinkula tabcaynaa intaan waxaanu doonaynaa in qorshaha maxaan ku raadayay hawsheedii la diyaariyo waxa kaloo la doonaya xukuumadda halkan ka baxay qolada qayaadeed ninkii lagu xukumay ee sharciyadu xukuntay in isagana sida ugu dhaqsaha badan loo soo qabto wixii aad gacan u baahataan in la idinka siiyana saabka generaalka ciidamada aadan xukuma taliyaha qaybta booliiska aniga wasiirka ah intaana qayb aan idinka siinayno qoladiina Bahar Same arrinkaan ninka soo qabashadiisa hawshiisa hawlgalkiisa mas'uuliyadeeda waxba kula jirtay miya wax ku leeyahay midna waa iga dardaareen waxaan sidaa hadii hore leedin yiri waxa weeye labada beeloodba ballantay galeen wayna oofiyaan
mid waxaan leeyahay labada beelood khayr cabdi garaad wixii idin soo gaadha hadda wixii ka dambeeya qofkii wax la idinka gaarsiiyo xukuumadda Soomaaliland baa mas'uuliyadda qaadaysa loona kulman maayo hawla dagaal tagina waxa weeye wixii la dilo xukuumadda balanti qaadaysa ninkii sida u keeni lahayd qolada Bahar Same waa sidaas leeg xil idin kama saarna qofkii la dilo waxa weeye waxaad oranaysaa hebel baa la dilay xukuumaddu ama Khadar Maxamed Cabdi Tarabi TV caalamiga badda 24 TV magaalada Laasanood